السلام عليكم ورحمة الله وبركاته فرسديال ويبا كدا وادا سنة برامجكا هنرابطة أو تضبات كي بها المركو فرسدا سنتي في جناوكي تضبات كم برامجكو ويبا مرتين كأها صابرين محمد حسن أو كوميدي قبلو كنول مقالة بايدا بس نمركانا والكبراداسا ويبانون برامجكو نكو كهذا لانا والبرشد قبلو قارهان قبلو يرير صابرين تي في جناوكي كدوان عندها ولا شادي أربعة محسنتهاي السلام عليكم لما سلام يا بلشة الصومالية ميل والبيقة داونيان وحنا أمهد علمية سيدا قروح ذا بدن يسو دويان تيفيقة جناوكي انت اسكدي بوحانج على استئنا صوبا ديقو برنامج كوحبرشة قبلها وياهي محا مايكي كلفي انتادا وهذا الله والبرشة قبله run ahaantii waxa igu kalifay inaan ka hadlo barnaamijka waxbarashada gabdhaha marar badan baa isku dayay markana uguma horeyso kulay waan jeclahay markan iyo mar ka badan ba inaan ka hadlo barnaamijkan aan ku dhiirigeliyo gabdhaha Soomaaliyeed inay mar walba wax bartaan sababtoo ah waxbarashada gabdhaha muhiim bay inoo tahay waxaanan arkaa inta badan in dadka ayna ihtimaam siinaynin waxbarashada gabdhaha in raga laga hormariyo kale midna dhaho adigu joog wiil baa wax soo baranaya maadaama adigu gabar tahay ha laga horeeyo taasna waxaan aaminsanahay inay tahay dib u dhac lagu keenayo gabdhaha bulshadana dib u dhac bay tahay sababta hore loo dhahay gabar wax baratay waa bulsho wax baratay bulsho wax baratayna waa bulsho horumartay hadaba waxaan rabaa si aan horumar u gaarno inaan gabdhaha wax barno insha Allah marka may aragdi oo dhibaato gabdho dhinaca walbarashada run ahaantii waxaa arkay dhibaatooyin badan مثلا gabdho waxaa jira aanan awoodin inay wax bartaan ama aan iskuul iska bixin karin oo dad danyar dhaleen isla markaana aanan la siinaynin inay wax bartaan kadib waxaan arkay in dhaqamada Soomaaliyeed inta badan aan ahayn kuwa oo dhinaca gabdhaha ku xeel dheer sababtoo ah la xad ilaa ilaa markii hore gabdhaha xoogay dhinacooda waa laga way ka yara dambeeyaan bulshooyinka kale sidaan in badan aragnay saas daraadeed dhaqamadeena iyo bulsho ahaanteenaba ma ahan mid gabdhaha aan mar walba ku soo hormarino waa mid aan rag ku hormarino midna waxaad arkaysaa meel iskuula ama meel bareefada waalidiina loo wacaa hooyooyin ma joogan way ku yiraahdeen raga fadhiya gabadha hooyada waxaa la rabaa inay soo raacdo aabahana inuu wiilka soo raaco si yani mar walba waxa gabdhaha ay u horeeyaan ay dib u dambeynino yani meelsha gabdhaha ku yaraadaan waxaan jeclahay meel walba la fadhiyo inay gabdhuhu ku badnaadaan marka saabin aad wala baradaasay aad iyo aad waxbarasho kala duwan iskuulka waxaan ku jiraa sanadkii u dambeeyay waxaan ahay fasalka form 4 waxbarashadeeda kalena waa iska bartaa ma sha Allah marka gabdho wala kiila baradaan kuwan walbarashadii way jiraan gabdho badan oo waxay la bartaa ama asxaabnahay ama iskuul isla dhigano ama bareefada ahaado way jiraan xataa gabdho xaafada ah oo anu mararka qaar aan wax baro guriga iigu yimaada aan cashiro siiyo habeenkii oo kale hadaan fursad helo marka waxbarashada gabdhaha marka aan tay ahaantayda fiiriyo inta aan cabiri karo aniga wax ila barata way badan yihiin khaasatan anigana waxaa ugu talagalay gabdhahan xaafada la joogo inaan aniguna wax baro si ay iyaguna u horumaraan marka fursado aad siyaasi gabdho deriska ko ogolaadayna keenkooyana wala baradayna runtii way jecel yihiin oo markay arkaan anu inaan wax baranayo waalidiinta badanaa waxay dhahaan saabiriin ku dayda marka hooyooyinka qaar baa jira deriskayga ah aan iyagana habeenkii kutub quraan u mariyo ama daraasaad kale ama gabdho yar yar oo wax u qorqoro oo deriskayga cashiro yar yar gabdho yar yar waa runtii gabdho saa u waaweyn male marka waalidiinta laga reebo laakiin iyagana maadaama gabdho yar yar yihiin wax waan baraa marka waxbarashada bilowga ah oo gabdho iska da'yar waaye tan ugu weyn 12 sano jirta marka gabdho walbarashada shaleeto diiniyo marka diinigana ku waran diiniga runtii waan baraa oo waalidiinta waaweyn baan kutub u mariyaa markay tahay habeenkii oo kale maalinkiina iskuul baan dhigtay oo ma haleelo kutub quraana u mariyaa waalidiinta habeenkii markay tahay deriskayga ah ma badna 2 qof 3 qof le waaye gabdhaha yaryarna waa gabdho yaryar oo deriskayga ah waxba u qorqora laakiin saasay tahay mar walba ii yimaadaan waxba kuugu marmarsiyoonaya ana marka ii yimaadaan waa arkaa wax waa u dhigaa marka ii imaan waa iska dhaafa sababta anigaba badanaa fursad ma helo aan iyaga wax u dhiga laakiin mar walba waan jeclaa inaan u sameeyo marka shaqada idda iyo walbarashada se waqtiyada siyaasi anigu badanaa
habeenkii baan guriga joogaa maalin guriga ma joogo oo hooyaday baa badanaa iga caabisay shaqada guriga haddaan guriga ka maqanahay habeenkii oo kale inaan hooyada caawiya way dhici kartaa iyadaana mar walba igu dhiirigelisa inaan wax barto oonan hawsha guriga ay isku mashquulin maadaama aan gabar yar ahay waxaanan jeclahay inaan mar walba aan wax barto gabdhaha walaalahaygaana ay mar walba igu daydaan anoo kale noqdaan marka gabdho badan ooda la taliyada jarana walbarada haa way jiraan oo gabar hadda ka hor aan saaxiib ma ahaan jirin laakiin dariskaygay ahayd waxay kasoo guureen qaxooti bay ka yimaadeen marka dariskayga heeda waxay rabtay inay wax barato reer danyar ay ka dhalatay marka ma awoodin inay wax barato marka waxaan ku dhiirigeliyay inay aado iskuul qaxootiga noo dhawaa ugu dhawaa marka wax bartaan wax ka baratay tagto hadda way tagtaa maasha allah waxbarasho bilaashay dhigata laakiin weli ma gaarin heer sare weli dugsigay hoosay wadaa gabar yar waaye ada kala taleeda haa marka waxay iga dalbatay inaan waalidkeeda u sheego maadaama iyadu yartaa inaan waalidkeeda ku dhaho waxaan rabaa hooyo inaan wax bartay ugu tiri buug isiibay maalin igu tiri marka buuggii baan siiyey markay guriga kusoo laabatay waxay dhahday hooyadii lagama ogay tiri inaan wax baranayo laakiin way jeceshaa inaan wax bartay tiri laakiin waxay igu dhahday meelaan waxbarasho kuu geeyo ma garanayo ana waxaan kula taliyay marka inay aado iskuul qaxooti u dhawaa marka hadda gabadhaas is argaasana haa dariskayga waaye way jira gabdho oo ida shaqo ka qobadaan oo iskool ma dhigada korna iraan gabdhowaas may kala tali lahaydaan way badan yihiin runtii waxaana kula talin lahaa mar walba meel walba ay joogaan gabdhaha Soomaaliyeed ama ha dheeraato ama ha dhawaato inay wax bartaan oo shaqada guriga waa la qabtaayo qasab waaye gabadh inay shaqo guri barato sababtoo ah isku xidhan yihiin mar walba waxbarasho waaye iyaduna inay gabadha gurigana shaqada ka qabato iskuulna dhigato waa waajib sababtoo ah gabadha hadayna ayna shaqada guriga aqoonin runtii hadhowdii mustaqbal dambe yeelan doontaa laga yaabaa inay reer yeelato mise ay guursato kadib laga yaabaa gabadhii inay shaqo guriga ka siin laakiin buug iyo qalin ka siiso sababta buug iyo qalin mar walba meel lagu gaaro maadaama gabartahay waxaa fiican shaqada gurigana inaad qabatid mar walba iskoolka aad hadda dhigadaas gabdho oo kala bar aan ku taban jiraan oo guursadeen ma jiraan laakiin waxaa jirta gabadh guursatay haddana iskuulkana la dhigataan ka saayas ada walbarashada saa sheegtay gabdho kala taliyaas gabdho iskoolaadka kale ay taaseetay iskoolka walbarashada wada irtay maya ma dhicin laakiin waxaan rajaynayaa insha allah isbuuc kadib inaan qabto workshop aan ku dhiirigelinayo gabdhaha oon ku qaban doono seminar yar oo hal maalin ah si aan insha allah ay ku caawi marka insha allah waa arki doonaa dad badan baa jira jecel inay iga caawiyaan marar badanna aan la xiriiro bulshooyin ah marka iyagaan rajaynayaa inay iga caawiyaan taana marka adi macalinkuna gadaas biyo maadaama anay tahay xirfadayda sababta qof kastoo bini aadan xirfad buu leeyahay xirfaduna ma aha wax loo noqdo jaamacad lagaga soo baxo waa shay xirfadu ilaahay ku siiya adigana aad sameyn kartaa ana waxaan dareemay inay xirfadayda tahay ana ay dhaqan ay noqoto kaga faa'iideysto gabdhaha kalena aan ku dhiirigeliyo gabdho badan oo aad la taliday kiyasan jiraan way jiraan yaska bini aadamka uu ka dhaxeeyaa qofna waa leeysaa qofna waa la qiimeeyaa marka dabeecaddeedaba ma aha inaan qof bini aadan yeeso laakiin way jiraan dad yeestaan isticmaal mesela waxay ku dhahayaan igama aqoon badno igama maxeeday waxbarasho fiicna saan wax bartay wartaasi iga hormaray horumarka waa loo siman yahay oo qof kastoo jecel inuu horumar uu gaari karaa ama ha dheeraado ama ha dhawaado horumarka waqtiga uu ku yimaadaa la sugaa sababtoo ah guusha markaad gaaraysid bilowgaa laga bilaaba mar walbood guulaysatid alxamdulilah baa dhaha horaa loo socdaa laakiin haddaad marka aad dhahdi waan sugayaa waqtiga laga yaabaa inuu kugu yaraado marka way jiraan dad iyasa badana oo dhahaya saabiriin gabar yar waaye weli ma gaarin xiliyay wax ka hadasho weli way yar tahay ana taas uma dhawaado sababtoo mar walba waxaa aaminsanahay fikirkayga ah in aan horumar isgaarsiin karo shakhsiyadayda anoo dhaqankayga iyo dabeecadayda isticmaalay dhinaca walbarashada aad ay kii dhiirigelin aniga yaraantaydii marka ahaa 8 sano ilaa hadda wax waan bartaa awalan waxaan joogi jiray magaalada Boosaaso ka bilaabay dugsiga hoose dugsiga dhexena waxaan ka dhigtay dawlad deegaanka Soomaalida Itoobiya
dugsiga sarena Soomaaliya ku qaatay magaalada Baydhabo marka aan markaan dugsiga hoose ahaa waxaan dhigan jiray meel boodi ah subax ilaa galab ah inaan dugsi aado inaan iskuul aado ahayd marka aan waalidkayga garab taagnaa mar walbana igu dhiirigelin jiray inaan wax barto qof gabar aad waxbarashada ugu firfircoon waan ahaa markaan yaraa ilaa hadda waxaan jeclahay mar walba inaan wax barto meel walba oo joogo waxaan igu dhiirigeliyay hooyada iyo waalidkayga aan ugu mahadcelinayaa xaalad walba ku sugnaana iyaga garab isoo siiyay Baydhabo muddo kooban gobolka baradahay Troogda gabdho Baydhabo walbarashadu hadeed aragtay markaan dhaqan ahaan fiiriyo dhaqanka magaaladeena la joogay dhaqankeena kale dhaqanka Baydhabo runtii waa dhaqan aad iyo aad u fiican laakiin waxbarashada gabdhaha hadii dhinaca waxbarashada la fiiriyo sanadba sanadka ka dambeeyso hore u soo kobcayaan sababtoo marka imanay iyo hadaba waxbarashada isku mid maahan marka imanay ma ogeyn aniga si fiican ma kala aqoonin laakiin waxaan ogaa in bulshada aadayna ugu dheereen waxbarashada waxaad arkaysaa fasalkiiba hal layna gabdha laba layna wiilal waaye waxaad arkaysaa 6 gabdhood 4 gabdhood meel fadhiyo wiilal badan fadhiyo taa waxyaabo badan ay kalifaaya oo duruufo jira awgeed mise in reerkii ayna awoodeen inay lacag wada bixiyaan wiil gabadh intaba inay lacag wada bixiyaan isla markaana ay danta ku kalifayso mid iyaga kamida inay waxbarashada ka reebaan oo waxa la dhahaa midalan naagtanin baa guursan reela yeelan wiilka laakiin yaa u shaqeynaya laga yaabaa in gabadhii waxbarasho la geeyo laakiin wiilkii laga reebo gabadhii waxbarasho aanan la geyn ama wiilkii laga reebo oo midalan wiilka ma shaqaysan karaa la dhahaa subaxina uu shaqaysana casarkin laga yaabaa inuu breakfast mise iskuul aado laakiin gabadhii ma awoodo ma ogtahay laga yaabaa inay dhar dhaqdo dhar hadday subaxii midalan meel aado kale ay dhar ku fariisatay dharaan dhaqaa ay dhahdo laga yaabaa in casar mise waqti dambe ay kasoo tagto marka awoodeed inay waxbarashada iska bixiso waalidkiina ayna awoodin inay waxbarasho geeyaan markaana danta waxay kalifay in gabar laga reebo marka waxaan ku dhiirigelinaa dan ma jirto waxbarashada gabdhaha laga reebo ilaa aanan ka ahayn danyari duruuf jirta awood laakiin waxbarasho hadii la eego buug iyo qalin waalid baa awoodin inay buugaag mise qalmaan xataa ay gadaan waxbarasho kale iska dhaafay marka waxaan rajaynayaa hadaa iskuulka dhameeyo insha Allah shaqaysto waxbarasho gabdhaha khaas ah inaan furo insha Allah taala da'yar ah gabdho bas ay dhigtan doonaan insha Allah bilaasha Baydhabo hadda iskoolaad hal ilaa miya keenan gabdho kaliya dhigtaan iskoolagaas inteeda seeti maadaama walbarashada fadaas intii gabdho iyo horumar diiraan inteeda seetay ka dhiirigeliyay maya wali ma dhicin laakiin way dhici doontaa insha Allah waa rajaynayaa gabdho badan TV channelka ku fiirsadahayaan may erlahayd inay walbarashada ku saabsan waxaan rabay inaan kelmadeyda aan ugu sheego inay tahay waxbarashada gabdhadu muhiim iyo aad muhiim u tahay sababtoo ah gabadh wax baratay waa gabadh dhaqan karta gurigeeda gabadhu hadii jaahilad tahay ay taqaano sida cunto loo kariyo sida guri loo dhaqo isla markaana ayna aqoonin sida wax loo aqriyo wax loo qoro ama ayna fahan reereedba ka dhaadhacsaneyn iyo gurigeedii dhaqi karin ay waxba sameyn karin tusaale ahaan gabadha iyadoo yar hadii guursato waxna baranaysa laga yaabaa in la dhaho way yartay mas'uuliyad ma qaadi karto laakiin mas'uuliyadda laga yaabaa inay ku kalifto aqoontay lahayd sababtoo ah aqoonta mar walba waxa weey furaha nolosha maadaama ay tahay laga yaabaa gabadhii hadii ay guursato inay aqoonteedii guri ku dhaqi karto xataa naag weyn oo yacni jaahilada inay markaa ka fiicnaan karto laakiin gabadhii hadiina aqoon lahayn oo marka waxbarashan hore u baran dib ay ku noqon kartaa inay reer dhaqdo marka waxaan rabay inaan u sheego gabdhaha inay wax bartaan mar walba isku dhiirigeliyaan inay wax bartaan sababtoo ah gabdho badan oo adduunka waxaa jira horumaray waxbarasho heerka gaaray caana magac leh ama siyaasadaha ama dhakhtarada ama ay dhaqan ha ahaato ay gabdhuhu dhinac walba bulshada kaga jiraan ay horumar u gaari karaan hadda form 4 mar hayto saad in sheegtay hadda jaamacad dhamayto mata jaamacadda may bartay aan xirfadayda hada fiiriyo دكتورنimo waaye xirfadayda laakiin maraba in takhasus ii noqdo sababtoo ah takhasuska waa gaar xirfaduna waa gaar waxaan jeclahay dhakhtarnimada inaan gurigeyga ku dhaqo ama hadii la ii baahdo kale aan bulshada wax ugu qabto laakiin takhasuskayga waxaan rajaynayaa inuu noqdo political science dhinaca siyaasadda jira waayahay
mustaqbalka may adduunka ka roogta fadaas inta nolola magacan Sabriin leeyahay horta iyo dhaqankayga iyo dabcan marka horumarka aan gaaro magac yeelo doono midalan professoradina noqdo professor Sabriin la dhaho ama inaan doctor noqdo doctor Sabriin la dhaho labadaba waxaan jeclaa kale midalan in la dhaho magacaasna way leedahay kana way ku darsato kale inaan laba magac ama saddex magac isku darsado aan kadibna aan magac yeesho gurigayga reerkayga hooyaday aabahayna aan magac u soo hooyo sababta mar walba way ugu faanaan gabadhiisa gabdho badan hakiinka daysida may baaq gabdhoon dar lahayd adoo jaanis ku faa'iideysaa TV channelka waxaan jaanis u dirayaa gabdhaha waxaan rajeynayaa insha Allah barnaamijyo badan inaan qaban doono waxbarashada gabdhaha lagu dhiirigelinayo marka waxaan rajeynayaa gabar kasta oo jecel inay wax barato isla markaana jecel inay horumar gaarto sabab waxa maskaxdaada ka dhaadhicsid mar walba way rumoobaan ama ha yaraadaan ama ha weynaadaan hanka iyo hamiga dheerna waa loo kala dhashaa laakiin waxbarashada waxay ku jirtaa waxyaabaha ugu muhiimsan ee nolosheena waxaana kula talinayaa gabdhaha Soomaaliyeed meel walba joogaan inay wax bartaan waxbarashada dhinaca walba diinaha tamaadiha qaybonka dambeeyay barnaamijka ahaan raabtiya sadeerni fiirsadayaal sabab su'aalanka dambeeyta gabdho wala ka baradayaan baydhaba oo full time iskoolkan dhakadayaan hiraabti ilaa dhigta duhurnimo ku baayaan way balistugada ogya hadda ayaan bilaanta inta badan wada aragdi gabdhogaas bal fikirka ka damay sababan mawaalidku ma yoo hadda daayana sababtme way badan tahay kulay sabab badan baa sababi kara in gabadh iskuul ay ka soo daahdo laakiin aan laba sababood baan sabab uga dhigi karaa tan koowaad waxay tahay gabadh in shaqo guri qabato guriga ka shaqeyso isla markaa ay soo dhaqsan karin tan labaad waxaa jira gabdho iyaga isku mashquula markay iskuulka soo baxayaan iyagana waxaan kula taliyaa isku mashquulayaan labiska yani waxyaabo badan ay isku soo qaadayaan markay iskuulka ka imanayaan inay makeup soo marsadaan inay soo labisaan taasiba waa dib u dhac oo waqtiga ka daahinaysa marka waxaan rabaa inaan kula taliyo iyagana in marka iskuulka la soo tagaayo waqtigiisa la ilaaliyo gabadha waa muhiim inay soo qurxiso soo dhisto amba waan jeclahay taa laakiin waxaan kula talinayaa markay iskuulka waqti ka hor inay isa soo diyaariso isa soo labisto timeka iskuulka 2 saac badan la galaa iskuulada marka iskuulka la gaaro inay ku soo laabato ana saan horta weligay iskuul waan dhigan jiray iskuulna laygama xirin xiisadna dib ugu ma dhicin xiisad kasta waqtigeeda maada goynta iyo in gabadha iskuulka ay jarjartana macquul way noqon kartaa ama inay xanuunsato ama inay dib ku dhaco ama inay wax ku dhacaan ayaa dhici karta gabadha iskuulka maalinta ay weydo uma badana ma arkin gabadha iskuulka badanaa gooya marka waxaa fiican in iskuulka timekiisa la ilaaliyo sababta wax kasta adduunka joogo waqti buu leeyahay waxna waqtigiisa lagama hordhaco waxna waqtigiisa laga mooreysiyo saasay taa waxaa rabaa in ayagana kula taliya inay ilaaliyaan waxbarashada waqtigeeda waayahay fiirsadayaal barnaamijka wayba martiinka haytay Sabriin Maxamed Xasan sidiisin aragaytan waa gabar da'yar oo yeesheegintay bilowtay barnaamijkii aan ka ololaya gabdho walbarashada da'yar Sabriin idan mahadsanto barnaamijkan lamid fiirsadayaal antoon reedan ku kulmaana sidaas iyo nabadgelyo